halkan waa xanta wararka ku biir oo ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aynu ku falanqeyn doono kuna faaqidi doona haddii waa la wadaalo ka noqdo saaxiibayaal daawadayaal waxaa ka mid noqon doona Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor oo tababar u soo xiray cutubyo ciidan ah oo duulaan inuu markaasi ku tago qayb ka mid ah dhulka oo laga haysto ayuu markaasi doonaya barnaamijkan idinku soo gudbin doona ciidankaasi tababarka loo xiray Cabdilcasiis Laftagreen hogaamiyaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo in dhawaalaba ku sugnaa ariga dalkaasi Itoobiya ayaa dib ugu soo laabtay waxaana uu shir gudoominaya kulankiisii golaha wasiiradu barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii waa la wadaalo ka noqdo sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inagu xiranow waxaa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan ku soo gudbin doonaa haddii waa la wadaalo ka noqdo taageerada caalamka iyo qorshaha xukuumadda oo la iswaafajinayo qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan soo dhawaada halkan waa xanta wararka ku biirow ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran aynu ku bilaawno daawade adigoo la garanaya sidoo kalena sheer garanaya taageerada caalamka iyo qorshaha xukuumadda ayaa markaasi la iswaafajinayaa Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dawladda Sweden u fadhiya Soomaaliya Bed Lengade kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal waa Sweden iyo Soomaaliya danjiraha ayaana sheegay in dawladda Sweden ay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya iyadoo mudane Lengade uu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay sidii la isugu waafajin lahaa taageerada saaxiibada caalamiga ah iyo qorshooyinka dawladda mudnaanta u leh oo ay ugu horeeyaan wax ka qabashada xaaladda amniga iyo sidii loogu gurman lahaa shacabka ay saameysay abaaraha si kasta oo xaaladda noqoto waxaanu eegi doonaa markan haddii aynu ka dhaqaaqno arrimahaasi qaybaha kale ee barnaamijkan qoorqoor ayaa waxa uu markaasi u soo xiray tababar ciidamo cusub madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor ayaa maanta dufcaddii koowaad ee booliiska maamulkaasi tababar uga furay dugsiga tababarada degmada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud qoorqoor ayaa ugu horeen dardaaran u jeediyay ciidamadan cusub oo tababarka u furay waxaana uu ku amaanay go'aankooda ku aadan ku biirista booliiska Galmudug sidoo kale waxa uu ugu baaqay saraakiisha tababarka siinaysa inay u dhameystiraan cutubyadan adeegyada ay u baahan yihiin si ay uga mid noqdaan ciidamada booliiska madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in booliisku uu yahay ka warqabaha bulshada ayna tahay inuu ilaaliyo amnigooda iyo sharafkooda sida uu hadalku u dhigay ciidanka booliisku waa ciidanka sida gaarka ah markaasi uga warqaba waxyaabaha bulshada u baahan tahay in gacmaha lagu hayo amniga bulshada si kasta oo ay xaaladda noqoto in la ilaaliyo maslaxadda bulshada waxay u baahan tahay in la barto sida uu yiri qoorqoor madaxweynaha Galmudug dhankiisa ayaa faray macallimiinta tababarka bixinaysa inay ku dadaalaan ciidamadaasi aynu u dhameystiraan shuruucda u degsan booliiska macallimiinta tababarka qaybihiisa kala duwan bixinaysa waxaanu doonaynaa in tababarka iyo bulshada ama barashada shuruucda booliiska si dhameystiran ciidanka u qaataan ayuu raaciyay Galmudug oo weli dagaal ay kula jirto al-shabaab ayaa haddana ku howlan dhismaha ciidamadeeda si ay ugu filnaato amniga gobolada Galgaduud iyo Mudug waa hagaag saaxiibayaal daawadayaal markan waxaan u eegi doonaa Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kol sii horeysay Itoobiya ay kaxaysay muddana ku sugnaa halkaasi ayaa waxa uu sidoo kale dib ugu soo laabtay maamulkiisa isagoo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo toddobaadkan warbixin looga dhageystay wasiirada wasaaradaha qorsheynta amniga arrimaha gudaha iyo gargaarka ugu horeen madaxweyne Cabdilcasiis Laftagreen ayaa golaha warbixin ka siiyay safarkii shaqo ee ugu maqnaa dowlad deegaanka Soomaalida isagoona sheegay in isaga iyo madaxweyne Mustafa Cagjar ay ka wada hadleen iskaashiga arrimaha amniga waxbarashada iyo ganacsiga wasiirada wasaaradaha amniga qorsheynta arrimaha gudaha iyo gargaarka ayaa ka warbixiyay
howlaha shaqo ee wasaaradaha ka socda iyo dadaalka ay ugu jiraan horumarinta iyo wax u qabashada bulshada ku nool guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa golihiisa wasiirada uga mahadceliyay dadaalka ugu jiraan u adeegida bulshada adeegi lahaayeen shacabka, waxaana uu golaha wasiirada ku bogaadiyay inay xoogga saaraan gurmashada dadka ee abaaruhu saameeyeen, xoojinta ka wada shaqeynta xaqiijinta amniga. weli kama uusan hadlin socdaalkiisa Itoobiya iyo waxa daaran iyo waxa uu markaasi ku soo gorfeeyay intuba. mucaaridka danleyda ah ayaa xargaha soo goostay. caqabadaha siyaasiyiinta waa cabashada siyaasiyiinta danleyda ah ayaa kordhaysa, waxaana kuwa u muuqda inay ku fashilmeen inay xubin ka noqdaan xukuumadda oo uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. xarumaha warbaahinta dalka ee gaarka loo leeyahay ayay siyaasiyiintu waqtigan buux dhaafiyeen, iyagoona doonaya inay dhaleeceeyaan hanaanka lagu soo xulay golaha wasiirada. beelaha qaar ayaa iyaguna cabanaya maadaama dadkii ay odayaashu la doonayeen kuraasta kuwa aanan ahayn u xushay ra-iisul wasaaruhu. siyaasiyiinta iyo odayaasha beelaha cabanaya ayaa dadka qaar ku tilmaameen qayb ka mid ahi mucaaridkii danleyda ahaa oo markan xargaha soo goostay. qaar ka mid ah kuwa wax dhaliilaya ayaa waa haraadigii hoggaankii hore ee Farmaajo, kuwaasi oo ay dabada ka riixayaan isaga iyo Fahad si dalku u galo gallaaso siyaasadeed oo ka daran kii uu ka soo baxay. si kastaba oo lagu soo xulay xukuumadda cusub waxay ahayd mid muddo badan qaadatay ku dhawaaqisteeda, oo sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu uu kala hadashtay inta badan bulshada. waxaase maragma doonto ah in lagula xisaabtami doono wax kasta oo qalado, balse dhaliishan waqtiga hore ah ayaa ku suntan mid loo fasiran karo dad ku hungoobay yoolkooda oo dhaliil iyo cabasho hiilbidaya. si kastaba xaaladda noqoto, faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay Jowhar. qarax ismiidaamin ah ayaa kol sii horeysay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle, waxaana qaraxaasi faahfaahin ka bixiyay taliska booliiska magaaladaasi. qof isu xiray waxyaabaha qarxa ayaa ismiidaamiyey, waxaana geeriyooday naftii haligihii, halka dad kale oo askar isku daydayna inay ka hortagto ismiidaaminta ay ku dhaawacmeen. taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar oo la hadlay telefishinada maxalliga ayaa sheegay in 2 askari oo ninka isqarxiyay ka hortagaysay iyo gabadh kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. sida uu sheegay, magaalada bartamaheeda ayuu qaraxu ka dhacay. nin jaakad qaraxyada soo xirtay ayaa rabay inuu isku qarxiyo dad shacab ah oo meel isugu tagay. ciidanka amniga ayaa dadaal badan sameeyey. dhaawacyadaasi 3 ah markii laga soo tago dhimasho aan ismiidaamiyaha ahayn ma jiro, ayuu yidhi taliyaha hadlay. goobta uu doonayay inuu isku qarxiyo ninkaasi waa hodheelka, waxaa hoteelkii markaasi City la yiraahdo oo ku yaala bartamaha magaalada Jowhar, waxaana lagu celiyay banaanka hoteelka. hodheelka waxaa isugu tagay ama ku sugnaa dad badan oo xaafadaha magaalada ka kala yimid. dhalinyaro badan ayaa isugu tagta oo waa hotel weyn. dadkaasi ayuu rabay inuu dhibaateeyo, ayuu yidhi taliyaha booliiska degmada Jowhar. waa qaraxii 3aad oo ismiidaamin ah oo muddo 20 cisho gudahooda ah ka dhaca magaalada Jowhar, waxaana qaraxyadaasi geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxyadii hore. si kasta oo xaaladda noqoto, dhibaatooyinka qaraxyada ayaa kusii kordhaya magaalada Jowhar ee ah xarunta uu ku shaqeeyo maamulkaasi Hirshabelle. si kasta oo xaaladda noqoto, qaraxyadan ayaa waxay markaasi noqonayaan kuwo dhibaato ku ah maamulkaasi, maadaama sidoo kale ay jiraan in dhowaan lasoo magacaabay golaha wasiirada ee maamulkaasi. halkan waa xanta wararka. daawadayaashii saaxiibada sida tooska inagu xiranow, wararka xanta ah oo aanu markaasi soo dusino warar kuwii ugu waaweynaa ee taagan iyo arrimo kale ayaan idinkugu soo gudbinaa oo faallooyinka qayb ay ka yihiin iyo kuwii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya ah, annagoo inta badan diiradda saarna arrimaha Soomaalida. daawade haddii aad ku cusub tahay nagu biir adigoo leeg garanaya, share garanaya qaybta hoosan arahdaada iyo waxay kula tahay nagu dhaafaya. fadlan subscribe inoo saar
gambaleelka furo